madaxda qaranka iyo shacabka reer Balugubadle madaxda gobolka Hawd iyo tandegmadaba iyo saraakiisha ciidamada kala gudbisan qaranka aad baan idin salaamay marka hore assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh inta markan ka gudbo waxaan idinka mahad celinaynaa sida wanaagsan ee aad noo soo dhaweyseen cadceedana u taagantiin inaad na dhegaysataan waxaan kaloo idin soo gudbinaynaa salaan aan wafdi ahaan idinka wadno madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamuud Silaanyo inta markan ka gudbo waxa weeye waxa maanta sharaf noo inaan soo gaarno caasimadda gobolka Hawd ee Balugubadle waxaan u soconay inaanu ambulance keeno daawana waan wadnay waan ogahay wasiir ahaan in dayax ka jiro dhinaca caafimaadka ee Balugubadle horena waan u imid xukuumad ahaanna wixii aan qaban karno horena waan u qabanay imikana waanu qabanaynaa haddii alla ka dhigo waxa weeye sida uu sheegay maamulaha cusbitaalku waxaa joogi jirtay hay-ad la yidhaahdo World Vision oo maalmihii wasaaradda lay dhiibay wax yar ka hor ka baxday intii ka dambaysayna waxa weeye wasaaraddu aad bay uga warhaysay shaqaalayntii 2014 waxbaanu siinay Balugubadle halka maamulaha waan saxayaa 15kiina shaqaale lama qaadan 14kiina hadda la joogaayo 16kii wasiir badan oo jira awgeed shaqaaluhu aad buu yiri balse wixii aanu heli karno Balugubadle oo ku dadaalana insha Allah waxa weeye sida aan sheegay xukuumad ahaan waan dadaalaynaa waxaanu kulanay oo shiray xubno firfircoon oo muhiima oo ka tirsan beelaha arab oo danaynaya horumarka gobolkan waxaanu ku heshiinay inaanu wada dhisno dhakhtar weyn oo gobolku leeyahay haddii alla ka dhigo waad ogtihiin sanadkan abaaro iyo culaysyo badan ayaa inagu yimid waa la joojiyey waxa la yiraahdo wixii dhismo ahaa madaxweynuhu wareegtu ka soo saaray sidaa daraadeed waxaan go'aansanay inaan miisaaniyadda wixii awoodda xukuumadda ugu darno sanadka 2017 balse waxaan doonaynaa in ay community-gu bilaabaan inay wax qabsadaan waxaa muhiim ah awliyaasha inay ogaadaan wax la qabto waxa ugu wanaagsan waxaad qabsato taasina way ka maqan tahay awliyaasha waxaan u malaynayaa annaga laftigeega qoladan adeeguha u tihiin cilladaasaanu leenahay waxa xad inaad nagu dhasheen waxaan rabnaa in aad kacdaan oo imika bilowdaan sidii aad uga hawlgeli lahaydeen qaybta ugu weyn idinkaa yeelanaya dhismaha dhakhtarka gudo iyo dibadba inaad sabaabushaan oo dhaqaalo u urusaan dhakhtarka maalin walba dhakhtar baanu meel ka furraa wasaaradda caafimaadka lagu wareejinayo oo ay soo dhisteen communitieskeena dibadaha jira iyo kuwa gudaha jira iska kaashadeen waxaan jecelahay waad ogtihiin waddankeenna dhaqaalihiisu aad buu u xadidan yahay waddan ballaaran iyo miisaaniyad yar baa laysku wadaa laysku farsameeyaa haddii aad sugtid xukuumadda wasaaradda caafimaadku waxay mas-uul ka tahay dhammaanba caafimaadka qof kasta iyo tuulo kasta iyo degmo kasta iyo gobol kasta miisaaniyaddeeduna aad buu u yartahay haddii aad sugtid in wax walba wasaaradda caafimaadku oo caafimaad ku saabsan ay qabato waxa way raagaysaa ninbaa waxaa la yidhi geelkadina waraabinaya oo aad u Italian ayaa niman soo mareen markaas ay wargeel makaligaaba waraabinaya marka siiru ha
markaasina walla kana cabbi maayo markaasina wuu cabbaya waa saraagaya geel wuu cabbaya wuu saraagaya waanu dadaalaynaa laakiin waxqabadkeenu wuu raagaya miisaaniyaddeena aad u yar marka waxaa la rabaa inaad ka qayb qaadataan horumarka dalka inaad ka qayb qaadataan dhismaha dhakhtarka weyn ee intellectualiska iyo waxgaradka iyo ganacsatada beeshu go'aansatay inay dhisaan wasaarad ahaan aanu qayb wax ka qaadan doono waxaan ugu mahad celinayaa wasiirka maaliyadda samsam marwe samsam oo suurto gelisay ambalaaskan iyo ambalaasyo kaleba oo fududeysay in ay iibsamaan oo xukuumaddu soo iibso ambalaaska balligubadle wasaaraddu waxay bixisay 9 bilood ka hor markaasaa inta la saluugay kii aanu bixinay ayaa dhakhtarka adna la iska dhigay oo aan nala soo sheegin meeshii aanu u soo dirnayna lama keenin annagiina nalaguma soo celin waxaa mudnaan leh wasiir cali maalmihii la magacaabay muddo yar kadib ayuu ii yimid oo yidhi warni ambalaaskii meey ambalaaskii balgubadle ambalaas baanu rabnaa waxaan ku waanigii dhiibay ambalaaskii balgubadle waanigii dhiibay weliba maalintii hore gaariga ambalaaskee noocadaa dhiibayey neamba ay khasbaan waxaan ku yidhi war waa rafo ma mari karto yeelkaana siiba yidhaahdeen inta laga soo qaaday baa dhakhtarka adna la dhigay cali baan u sheegay cali baa soo baaray inuu dhakhtarka adna yaallu soo ogaaday waxaanu isla garanay in loo bedelo balligubadle ambalaaska wasiir samson baanu ula nimid wayna nala qaadatay aadna waan ugu mahad celinay ambalaaskiina wakaa idinkaa iskale waxaan idinkula dardaarmayaa inaad ilaashataan ambalaaska dhibaatada ugu weyn ee na haysataa waxa weeye diro walbaa loo dhiibayaa gaari ambalaasa markuu bil wado gaarigii cusbaa waxaana soo gaaraysaa war ah gaarigii wuu fadhiista oo wuu jabay waayo dirawalin khayrulmas-uuliyiina baa jirta oo furfurata baabuurka xukuumadda loo dhiibo reer balligubadle waxaan ka codsanayaa ambalaaska inay ilaashadaan una dhiibtaan dirawal mas-uula oo ilaalinaya waayo dee iminka sidii uu ka warbixinayey xuseen gabdhaha dhexda ku dhimanaya baabuur la-aan awgeed yuu idinka fadhiisanin ilaashada aad iyo aad baan mar labaad idinkaga mahad celinaya sida wanaagsan ee aad noo soo dhaweyseen waxaan filaya inaan ku soo dhaweynayo wasiir samsam